السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هالكلمة واحدة لو بركان إلى اللي قصوا دادينه برنامج آدي آدو حسب ظن هذا حي بحدا جيبوتي توس تي في كل بشدة الدعوة سيء أنت الدعوة دو تروح لنا وحنا قصوا عنيسي برتا فيسبوك ولايفا واحد قدر لك السعود دوتين برتا يوتيوب كل بقى داديها برنامج كحسن دالية وكل بقى أتوقع بركان إنه البرنامج في على نيسو داديهو بشدة نقوله وده جواه ونكسن كل ما waxay barbar fadhiya oo caaw barnaamijkiisu yahay toddobaadlaha ee madaxda Xasan Sheekh Xareed oo kulliba aad uga barateen inuu wax wanaagsan inii gaadiyo winii yahayna nin heegan
reer Djibouti oo dalka dibadiisa u jooga oo raba dalku inuu maaragtay isbedel siyaasadeed isbedel dhaqaale isbedel maaragtay dowladnimo inay ka dhacdo Djibouti حسن شيخ وهي اساس وهي جاي marka waxaan aanahay kulliba aan daadinaya barnaamijka caawa jimcaha badano maaragtay ummadana daawanaysa inta daawada waxaan jecelahay kulliba bulshada daawanaysa inay mar waliba inaga bogtaan hadaladayda toosna u daawadaan hadii joogaan dalka dibadiisa iyo dalka gudahiisa xasan kulliba barnaamijku waa barnaamij lagaaga bartay inaad mar waliba u daadisid ummadda reer Djibouti wax wanaagsan lagaaga bartayna inaad mar waliba aad baashkaaga maaragtay twitterkaaga ama maaragtay baashkaaga facebook inaad mar waliba qoraal fiican aad soo dhigtid adduunkana aad la socodsiisid waxa la wixii dhibaato ka dhacaya dalka Djibouti marka ku soo waxsan barnaamijka Djibouti Toast TV kulliba waa lagaaga bartay wax wanaagsan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حسن أواد سلامة هاي دتكنا دانا وانا يردنا ويسلاميين وارون وحوية دتكو أد بينو قبرتين إني برنامج كان جمعها نسو جيدينو أو آينا لسعود سينو وحي كجيرا نب كجير توضن كا iyo waxa ay wadaan dadkan maamulka meesha jooga Djibouti jooga ee ugu tala galay maamulkan qowleysatada ah afartan reerka ku dhisan way ugu tala galay inay wadankii ummad idil ay soo halgamtay calankiisa u soo dagaalantay jiritaankiisa u soo dagaalantay inay baabi'iyaan marka waxa weeyaan waan soo dhawaadaan leenahay dadka waan ognahay dhibta internetka ka haysata dadka maalmahan dambe inuu ninkii maxay hayray madaxweynaha sheeganayay isku dhawaaqay Ismaaciil Umar loo oganayay tuugi ugu weyn geeska Afrika ah inuu internetka dhex fadhiistay Djibouti waan ognahay oo dadku aad uga cabanayaan biyihii iyo korontadii bay ahayd maanta internetkii bay gashay marka waxaan leenahay dadka soo dhawaada waa diyaar noonina aad baad u mahadsantahay xasan sheekh xareed kulliba waxaan nooga bartay barnaamij aad iyo aad u xiiso badan حسن داليه ودادهيه وحسن شيرنا ومدى وداغو واحد وناكسن كل ما وحنا لنا هاي هدام هاي بحضة جيبوتي توست تي في برنامج كبحي عاوة وحويا كل ما كسعدا إنا بالشدة اللي وداغنو وحي ما درت إياك أي لقى قرنا يا أبو وحي يكو هي أبين إنا بالشدة أصيرنا كل ما قرب كوغان هاي حبيني مالين وانوه قلنا هاي إنا يدل كيغا وكان نحنو ونحبيني يدنا رخنو فردنو ومديدا لو ذاقنو وحوناكسن حسن كل برنامج كيبا سيكو دقلينا هدان هاي بحضة جيبوتي توست تي في وحسن دالية حسن وكويديني واحد ترى دخلي عم مالكتي أفكا قلال دويل هذا فونسو فيران لمركاسي فونسو فيران قاسي بل وحي أي دولدو أي سيدي وحوقو طلقة شيء يلعك تاسي ملعك لوغو طلقة لإنا بانك أبا ميل لوغو طلقة لوغو الرسالة mise waa tu dalka iyo dadka lagu daafacayo oo ummadda wax loogu qabanayo waxa weeyaan xasano waa runtaada waxa jira foon sugaraaga foonkan ay yiraahdaan dakhligan ay yiraahdaan oo dakhli la abuuray waqti dhow la abuuray dakhligaasi oo muxuu ahaa sug qof waxay soo qoray joog baan leeyahay foonsuga dadkii reer Djibouti baa maqli la arintii oo ila soo xiriirayo oo moodaya waxa weeyaan xasanow foonsugeeraaga waxa raali noqdo waxay ahaayeen dadkii reer Djibouti baa ila soo xiriirayay oo moodayay iyo internetka ku kadeedan marka waan ognahay in dhibaatadaas internet ku jirto waxa weeyaan markaasi muxuu ahaa ii sheeg فون سوفيرانغا أما محايدة صندوق الله يراهدو صندوق مدح بنان دولة جيبوتي أي سمايسي وحويا صندوق قاسي وحلا أبوري دولة جيبوتي أبورتي سقالي لباتنكي بيش صدحات سنة كي هوري دولة جيبوتي أبورتي سيدا إنو شاقي سنة وحي سماينا يسا وحي قلت لك دولة جيبوتي إني لعاقتنا عم كبدا دالك إنتي دالكو أي دالك إنت سوقشا دخلك سوقلا وحي كبدا inay dawladdu ay meel dhigto oo ay u kaydiso maxayday jiilka dambe soo socda ama u maalgeliso laakiin sida ay tahay maaha oo dakhligaasi sanduuqaasi waxa loogu talagalay in lagu maalgeliyo wixii maxay ahayd waxaan u maleynayaa
xagga internetka baa ka go'ay xasan sheekh kulliga uu kusoo noqon doonaa waxaan aan leenahay bulshada la daawanaysa iyo internet daawan doonta kulli barnaamijku waa barnaamij toosa mudane Jabuutina ay ka boganayaan xasana uu kusoo noqon doonaa maasha Allah waxaan aan kasii hadlayaa oo bulshada la wadaagaya inta xasan kusoo noqonayo barnaamijka waxaan u maleynayaa xagga internetka ayaa maaragtay ka go'ay la kala dib ugu soo galay حسن ما شفتها رالي نقطة دبيرة حق انترنت كاهيد انترنت كايرا جواي waxa weeyaan marka sanduuqaasi waxa lagu talagalay in lagu horumariyo ama loo dhigo sida nin sheegay jiilka soo socda oo meel loo dhigo oo lagu maalgeliyo meelo badan sanduuqaasi waxa loogu talagalay in loo maalgeliyo jiilalka soo socda lacagta wadanka zaidka soo gashay in la maalgeliyo oo lagu shubo sanduuq gaara oo ka dawladda ahina ama budgetka ama dakhliga dawladda ku shaqeyso markaas lacagtaasi waxa loogu talagalay markaasi marka la maalgeliyo ganacsi meelo badan oo shirkado badan in loo maalgeliyo ama hay'ado la geliyo lacagtaasi si ay macaash badan ugu dhasho oo meel loogu dhigo jiilka dambe ama horumar loogu sameeyo wadanka laakiin arrintan Djibouti mataabay ma waxa u dhigmataa taasi mise uma dhigmato oo shaqays kuma leh marka sanduuqan dakhliga madaxa banaan ee dawladdu ay leedahay waxa weeyaan dhowr nooc buu kala kacaa ma badno waa saddex nooc un baa la oran karaa mid waxa weeyaan lacagta dawladdu halkay ka timaadaa sanduuqaas lagu shubo mid waxa weeyaan dawlad haysata maxay ahaydey dhaqaalaha dhulka hoostiisa ilaahay u geliyay ee petrolka iyo maxay ahaydey macdanta iyo dawladdaas leedahay oo dhoofisa sida wadanka Norway oo kale petrol dhoofiya petrolkiisa dakhliga dawladda lama geliyo meel baa lagu shubaa si jiilka dambe wax loogu qabto ama dhalinta dambe Britol ama wadanka wax loogu qabto meel baa gooni loo dhigaa wadana waxa weeyaan wadan ganacsigiisi iyo dhaqaalihiisu fasaxayo inuu lacag zaayida dhalo maxay ahayd budgetka iyo dakhliga wadanka dawladda soo galay inuu lacag zaayida abuuro oo lacag zaayida ay ka soo baxdo lacagta zaayidka lagu maalgeliyo horumarka wadanka oo meel la dhigo marka saddexaadna waxa weeyaan waa laga soo ururiyo ama ay isku keenaan ama caawimaada weeyaan marka taasi badan kama socotay labadan ugu horeeyaan baa muhiim labada midkeen qaadanay Djibouti petrol ma macdan ma lay dhoofiso waxa ku leedahay dawladda Djibouti wixii dakhliga zaidkeena soo galayay iyaan meel dhigayna oo dadka ugu horumar ku sameynayna horumarin ama shirkada aan gelinayna bay ku leedahay waa falso marka taasi dawladda Djibouti siday us oran kartaa maxay ahayd macaash ama waxa sameeyaa faa'iido sameeyaa isma hadalkay ku hadlayso dawlad dhagay maxaa la yiraahdaa isma maqlaan dhagaygiyo maxay afkeegiyo maxay isma maqlaan dhagaygu soo maqlayaan waxa weeyaan dhinacna waxay ka leedahay dakhliga dawladda soo galay kuma filnay ku leedahay oo wadanada sanad kasta waxay sheegtaa inuu dakhligu ku filnayn oo hoos u yaalo oo dawladaha sida Sacuudiga oo kale la hadashay ka tiraahdaa ay ku weydiiyay kaba dakhliga oo la ka kaba oo waa laga kabaa marka waxa weeyaan wadan dhan oo dakhligii laga kabayo iyo haddana kule muxuu ahaa ii sheegeen waxaan sameynayaa kayd lacag baan meel dhigaya wax dhici karaysa maaha waxa weeyaan haddaan eegno sanadka 2020kii waxa Djibouti dakhliga ay ku shaqeyso ka maqnaa ilaa 6 milyan oo dollar bay u baahnay Djibouti ku badnay lacagta u baahnayd ayaa ahayd hoos buu taalay lacag aad u badan buu u baahnayd lagu kabo budgetkayga hoos buu yaalay 2% la kabay budgetka dawladda Djibouti 2% ayaa la kabay sanadkii aan soo dhaafnay na dhaafay marka dawladdan oo budgetka ay ku shaqeynaysay budgetka dawladda ku shaqeyso waa maxay waa lacagta mishaarka la siiyo waa lacagta wasiirada la siiyo waa lacagta shaqaalaha dawladda la siiyo waa lacagta la siiyo lagu maalgeliyo caafimaadka waa lacagta lagu maalgeliyo difaaca waa lacagta tacliinta lagu maalgeliyo wixii bay kari weyday bixin kari weyday oo lacagta soo gasha ay bixin kari weyday oo dawladda sida Kuwait iyo Sacuudiga iyo Faransiiska ay weydiisatay in laga caawiyo iyo Mareykanka ay weydiistay in laga caawiyo sanad kasta oo kaba budgetkayga haddana waxay ku leedahay lacag zaayidaan hayaayo meel dhigaya oo aan ugu talagalay oo waxaan sameynayaa kees gaara oo lagu maalgeliyo dakhliga maxay lagu maalgeliyo mashaariic oo jiilka dambe imika haraad loo dhimanaya magaalada dhexdeeda iyo biyo la'aan ka taaganto haraad loo dhimanaya marka waxaan sheegaynaa in waxba ka jirin muxuu ahaa bahalkan ay sheegayaan keeskan dawladda in waxba ka jirin waxa weeyaan haddaba waxa weeyaan maxaa loo sameeyay keeskan maxay madaxa banaan
maxay dakhliga madaxa bannaan ee dowladda maxaa loo sameeyey sanduuqan madaxa bannaan maxaa loo sameeyey waxa loo sameeyey sanduuqan madaxa bannaan waxa weeyaan laba shay mid bay noqonaysaa waxa loo sameeyey lacagtii laga xaday dowladda intaayo sanadood laga xadayo Ismaaciil Cumar ka xadaya waa in la helaa meel la mariyo oo weji loo yeelo oo meel la mariyo la helo oo lacagta la sharciyeysto oo tugnimadaas la bixiyo oo dhul la marsado oo shirkada la gashado hadhowna la isku qorqoro kow laba waxa weeyaan shayga labaad ee loo samaystay ina lacagta maxay ahayd ii sheeg al-shabaabka ta laga ganacsado hubka ta mukhadaraadka laga ganacsado diyaaradahan loo samaystay Everjet iyo balaayo la yiraahdo loo samaystay fooga ina lacagtaasi laga helo ina meel la mariyo la helo weeyaan ay lacagtaasi marto waa in la helo oo la meeraa waa la meeraya lacagtii si loo meero meel la mariyo lagu meero waa in la helo markaas taasi maxaa cadeynaya waxa cadeynaya sidaan ni soo sheegay sheegii ugu horeeyay cadeynaya ugu muhiimsani waa dakhligii dawladda oo isku filnayn dawladda dakhligii soo galayay iyadoo isku ku filnayn dawladdiiba ay mishaarkii bixistiiba ku filnayn inay wadankii biyo u hesho ayna u haynin lacag ama ku ay la wareegayso ama ay siyada ku hayso haddana ama doonanaysa si ay qasabad biyo u maraan dadkii ay biyo ugu hesho dadkeedii ama la wareegayso ama ay siyada ku haysa lacag baan meel dhigaya wax macquul maaha lacagta meel dhigaysi dadkan gaajoonay imka si jiilka dambe noo dambeeyay maxaa dadkan imka haraadka baqtiyay loo cunaha loo qabanaya marka waxa weeyaan taaba ugu horeyso ku tusaysa inuu sanduuqan yahay sanduuq tugnimo oo wax lagu xadeeyay yahay talabaad ee taasini tusaysa waxa weeyaan dawladaha sanduuqa maxay hayday sanduuqaasi madaxa banaan leh waxa inay ku qasban yihiin inay ilaaliyaan xeerar la yiraahdo maxay hayday Principe de Santiago shuruucdii lagu dhigay wadanka magaalada Santiago lagu dhigay caasimada Santiago lagu dhigay mashaariicdaasi Argentina Santiago lagu dhigay qodobo badan bay ka kooban yihiin qodobada badan ka wada hadlimayno ee dhowr qodob baa jira ay ku qasban yihiin dadka sanduuqaasi samaysta inay ilaaliyaan sida wadanada awoodda badan lahayn sida Djibouti oo kale waxa kamid ah horta in la ogaado sanduuqani sababtii loo sameeyay iyo taariikhdiisa iyo halka bilaamayo in la ogaado halka uu ku socdo waxa loogu talagalay maxaa la maalgelinayaa kee loo maalgelinayaa saddex waxa waa in la ogaadaa sanduuqani lacagtu halkay ka timiday lacagtu inta halka ka timiday waa in la sheegaa hadii la yiraahdo eedeegan ka soo qaadnay la eedeega inta lacagan ka soo qaadnay oo sanduuqan ku shubnay iyo la oranayaa sanadkan waa in lagu qoray ku qornaata bisha inta aan ka soo qaadno sanduuqa ku shubnay waa in la yiraahdo lacagta waxa laga soo qaaday wasaaradda maxay ahayd ganacsiga inta aan ka soo qaadno sanduuqa ku shubnay waa in la yiraahdo waa in soo qornaata oo la cadeeyo lacagta halkay ka timiday waa in la cadeeyaa meeshii la geliyo lacagta waxa kamid ah waxaan maalgelinay shirkadaha baan u maalgelinay dadka lacagtoodii lacagteena wadan baale dad baale ma wax Ismaaciil Cumar inuu ogaado uu leeyahay intiisa haybado maaha wadan baale ummad baale ma garan laba tuugo isdalay waxay leeyihiin ma waxani waxa weeyaan marka waa ina lagu soo saaraa website inay yeelato weeyaan hay'adu website-ka waa inay ku qornaato shirkadii laga maalgeliyay lacagtii halkii laga soo saaray shirkadii la maalgeliyay waxay dhaleen inta qof ee ka shaqeysa sanduuqaasi mishahar intay qaataan nin kasta waa inuu ku qornaada website-ka oo dadku ay arki karaan markaas waxa ay dhan lama hayo Djibouti cid og ma jirto sanduuqun baa la sameeyay wax loo sameeyay meel uu socdo lacagta lagu shubo lama garanayo talabaad waxa ugu daran ee ku jira sanduuqaasi lacagtii dadku ay dhiganayeen CNSS-ta case-ka la yiraahdo maxay hayday arrimaha socialka u qaabilsan Djibouti hawlgabka dadka gala dadka shaqada accidentiga ku noqda waxa ay dhan caafimaadka ay dadku dhiganayeen ee sanduuqa ay shaqaalaha laga goynayay mishaarkoogii ay dhiganayeen iyo la qaado sanduuqa nus lagu shubay waxaan dad baa dhigtay shaqaalaha dhigtay maaha lacag macaash oo dawladdu samaysay maaha shirkad dawladdu macaash samaysay maaha waa wax dadku ay dhigteen dad shaqaalaha dhigtay maaha kuma jirto xeerka sanduuq ina lagu shubo lacagtaasi kuma jirto inay dawladdu amaahato ma qaadan karto lacagtaas waxay taabsan kartaa dawladdu marka quraatay khatar ay dawladdu gasho wadanku haduu khatar galo oo loo baahdo la difaaciyo oo kale waa la isticmaali karaa dhaqaale loo waayo oo hubkii lagu soo iibinayo dhaqaale loo waayo waa suurtagal taana waa in la isku raacaa oo laga wargeliyaa ururada sanduuqa ka hawlgala oo sida ururka shaqaalaha ururka dadka hawlgabeenka waa in laga wargeliyaa ay ka warhayaan oo guddiga u fariista sanduuqaasi uu saxaa u ogolaada laakiin se lacagtiis ka taalay kaydka waxa ay dadku dhigteen mishaarkeedii laga guriyay ina la sanduuq baan ku shubnay oo inanta Ismaaciil Cumar ina shirkad loogu maalgeliyo ku taala Brazil iyo dhulka ku taala loogu maalgeliyo oo inantii Ismaaciil Cumar ku noolaan doonto la yiraahdo war qoladani xagee ka yimaadeen aan xaraan iyo diin iyo waxba garan xagee nooga yimaadeen islaamna oo kala sheegay salaada tukadu forforsada ninkan Ismaaciil ma garan marka waxa weeyaan muxuu ahaa meeshani
tugnima loo furtay ee sanduuqan ma jiro wax cad loo furtay wayna maqlayaan wayna dhageysanayaan dadkii reer Djibouti markhaati bay yihiin ummadda af Soomaaliga garanayso dhan markhaati bay yihiin waxa weeyaan raggaasi haddaan wax beena ka sheegayno website-ka aad sameeyaan haddaad eegtiin sanduuqa madaxa bannaan ee dawladaha adduunka ay leeyihiin website buu leeyahay waxoo dhan ku jiraan kale xasan oo soo biirinaysa ee tusaysa dadka inuu been yahay waxan oo dadka lagu dhacay oo tugnimadii ugu weyneed ee meeshan maxay la sameeyay lacagtii wadanka laga xaday la marinayay ay tahay qaabkii ugu weynaayay wax lagu xaday ay tahay waxa ku daliila xasano waa ninkii Maamadu la oranayay ninkaas oo fursad u helnay inaan wax sir weedaarsano inkastoo intii ugu badnayd uu wali ka gaabsanayo inuu nagala qaybsado oo rajeynayno inaan ku aan ka raarino inuu naga ogolaado wax badan inuu nala qaybsado una wali ogolayn wuxuun haddana nala qaybsaday waxa weeyaan ninkaasi waa la caydiyay maalin baa la yiri waan ku erinay imiko qaraarun baa soo baxo wax lagu eriyo lama garanayo qofka marka la bedelo mas'uulka hay'adda caynka soo kale marka la bedelo wuxuu lacag badan leeyahay waa ina banaanka la soo dhigo la yiraahdo sababta baa lagu bedelay ninka dambiga abu galay sabab lagu eriyo ninka waxa lagu eriyay wuxuu arkay meeshii lacag intee laga socoto buu arkay wuxuu ka yahay wuxuu budgetkiina waa kan lacagtan ku soo shubtayna waa maxay waxay noqonaysaa dhibaato ay keenaysaa meeshan oo waa blanchissement aan waxaan nin caalan oo shirkada adduunka soo shaqeeyay ani bari waa la xiri waa la iga daba iman buu yiri waxaan iga joojiyo oo wax cad umad aan hor dhigna buu yiri oo iga joojiyo yiri ninkaasi wuxuu yiri joojiyo waxaan wax cad aan toosino waxaan saxno qolo u baratay inay waxdaan oo waxay liqaan oo tugnimo oo qoomba wax nidaamaba iyo dawladnimo iyo shaqo ku lahayn oo haysta meeshan meel maxay yareen muxuu isbaaro ku taala geerisa ku taala haysta umba ayaa heshay ninkii war waxa iska daa sidan u wadba leeyay ninkii waa kay la isdiiday waa ka magaalada loogu tuuray lacag buu la baxsaday haybadu uuriyay iyo sheeko aan jirin oo bilaa macniyo oo ciyaalnimo lagu tuuray ninkaas waxa lagu eriyay waxa weeyaan wuxuu diiday budcadii meesha jirtay iyo tugnimadii iyo qurunkii arkay buu war waxaan sidan laguma wado waxaan waa la iska daba iman doonaana for mondialka maxay FMI-ga ama maxay international money fund ya waxaan daba socota bangiga adduunka ilaaliya maxay qasniyadada caynkana maxay sanduuqyada caynkana madax banaan marka waa la iska daba iman doonaa anu nin caalamka ka soo shaqeeyay meel badan ka soo shaqeeyaan hay buu ninkii Maamadu bay oo ninkaas Senegaaliga marka anu inaan sharafteeda ku dilo ma doonayo waxan oo kale walaalahayo waxaan si saxda aan u marnay naga joojiyo ma yaba leeyay meesha ka tag baa leeyay waa kii maalin qaraar la soo qaaday dabada laga maray la eriyay marka waxa weeyaan waxaan leeyahay dadka reer Djibouti sanduuqaasi hal maxay nibasada u yaqaanaan ugu sheegay 1.5 milyaar dollar weeyaan dadka reer Djibouti oo saad fahmaysiin dadka Soomaalida waxaan u sheegay dadka kale ee Ingiriiska yaqaanaan waxa weeyaan 1.5 bilyan dollar yaa la marinaya yaa lagu shubay sanduuqa oo lagu maalgelinaya ina maxay hayday ii sheeg iya lagu maalgelinaya sanduuqa si maxay hayday mashaariic loo hirgeliyo waxa weeyaan waxa isweydiin leh waa san budgetkii uu Djibouti ku shaqeynay 2 sanadood baa sanduuqa lagu shubaya wadankani ma hayaa lagu leeyahay biyo baa la leeyahay oo aan soo amahanayna baan la leeyahay koronta la leeyahay internetka waa maanta la leeyahay 3 wadanka toddobaad kam ilaa toddobaad bay internet ma jirto wadanka oo daqiiqad waa loo qariiraya dadkii sidii muxuu ahaa sidii sonkortii baa loo qariiraya dadkii marka waxa isweydiin leh wadanka halka la gaarsiiyay ee halkii u dambeysay taagana inuu kala daato ku dhow iyo sanduuq waan samaysanay wax la maalgelinayo dibadda lagu leeyahay marka waxa weeyaan lacagta inta leeg halkay ka timiday lacagta inta leeg meel quraatay ka timiday anwaanigi markii horena waanigi hore u soo sheegay waan ugu celin dadka laba meelood bay ka timiday lacagtaas lacagtii wadanka laga xabeeyay iyo la meeydaya oo meel loo samaysanaya way gar ogyahay Ismaaciil Cumar iyo xulufadiisa inay ka dhamaatay taladii inay yaacayaan bay ogyihiin mar dhow oo la daba socdo oo lagu maqayo ogyihiin marka lacagtaasi meelo si ay ugu soo shubtaan ay meelo u dhigtaan oo lacagtaas ay u nidaamsadaan iyo u maalgashanayaan dibadda oo nidaamkii maalgashiga baa meel la marsanaya waxa weeyaan muxuu ahaa talabaadna waxay noqon kartaa lacagta inta leeg inay ka timid hadayna dakhliga Djibouti ka iman lacagtii laga xaday waxay ka imanaysaa lacagta laga shaqeeyay mukhadaraadka hubka laga iibiyo geeska Afrika oo dhan ama al-shabaab laga iibiyo ama laga iibiyo baalkii muxuu ahaa ii sheeg xuutiinta iyo waxa weeyaan mukhadaraadka hubka iyo balaayada argagixisada al-shabaab lacagtooda Djibouti waa lagu meeray inay tiina tahay way dhici kartaa la soo mariyay meesha marka waxa laga soo saaraya marka waxaan leenahay hadaba arintan markaan xasan aan soo gabagabeeyo dadka reer Djibouti waxaan leeyahay war waxa aqoon-yahan dibadda jooga lacagtan waa lacag badan
biya maalkiiga way ka badan tahay aan sheegno ma aragtay way ka badan tahay lacagtani dossier dhan baan haynaa dadka reer Djibouti ma wax iminka la bilaabaya maaha dossier dhan baan sameynay dossier dhan baan haynaa ninkii meesha ka mas'uulka ah laga eriyay wax buu ogolaaday inuu nala qaybsado wax inteeda badan uu diidan yahay laakiin waan ku guuleysan doonaa inaan ka soo saarno haddii Ilaahay yiraahdo waxaan igu yeeraynaa dadka dibadda joogay dhaqaalaha ama yaqaana ama aqoonyahanka ee ka qayb gali karaya dossier-ga inaan hay'adaha adduunka qabanno meelo badan boo iminka arrintaasi meel fiican bay maraysaa waxaan leenahay ka soo qayb gala bahashaasi waa inaan abaabada wada garaacno lulno si lacagtaasi loo qabto oo loogu furo baaritaan waan haysanaa xeerku noo fasaxayaa waan la xidhiidhnay ururka maxayday OMC-ga la yiraahdo ururka maxayday ganacsiga ee adduunka waan la xidhiidhnay halka Geneva ku yaala waan la hadlaanu reportka aanu geeyay way naga qaabileen arrinta ku saabsan waxay yiraahdeen waa arrin fiican laakiin ka dhaqaaqa oo buuqa badiya anaguna waan dawladda waan ka wareysanaynaa war cadkeen baan leenahay waxaan noo haray FMI-da dadka reer Djibouti u yaqaanaan ama fund international fund ka u yaqaanaan maxayday dadka Ingiriis ku hadla kuwaana inaa la xidhiidho dad Mareykanka jooga loo baahan yahay dad Ingiriiska jooga loo baahan yahay marka waxaan leenahay dadka aqoonta leh ama dhaqaalaha wax ka garanaya ama ganacsiga wax ka garanaya ee shahaadada war arrintan aan galno oo nin kastaba ururkiisa maaha looma baahna inaan urur ku dhaato isku tagno looma baahna inaan ururka xasan timaadiin nin kastaba isagoo ururkiisa haysta sal aan ka dhaqaaqnaa ni haynaa maanta buug baan ni haynaa sal aan ka dhaqaaqno samaysan waxaan leenahay aan nin kastaba abaabada garaaco ira war lacagta noo qabtaan la yiraahdo lacagta noo qabto bil cabdi hadeed meel xun bay gashay baashii lafii dadkii dhuuxii dadka Djibouti waa la siisitay war noo qabtaan la yiraahdo salkii waan ni haynaa waana nila qaybsanaynaa diyaarna waan inahay qofkii doonaya inuu arrintaasi ka qayb galana uu nala soo xiriiri karaa waan siinaynaa waan jahaynaynaa isagoo halkiisa joog ka dagaalami kara annaga nooma baahno ururkayga uma baahno ururkiisu iska isticmaalanaya waka halkaa baan ugu soo gabgabin ciddii wax ka su'aal kalena diyaar baan nahay arrintaas way nala soo xiriiri karaa aad baad u mahadsan tahay xasan jeer waa kaaga mahad celinayaa kolleyba bulshada reer Djibouti haddaan Djibouti Toos TV kolleyba wax wanaagsan buu la xiriiriyo xasan qabilsiinaya ama maaragtay xasan uu ka warramayaa waa wax aad iyo aad ummadda reer Djibouti ugu baahantahay waa wax maalkoogii muruqoogii dibadda loola baxayo dalkii reer Djiboutina ay meel xun marayso oo sheekada reer Djibouti ee bulshadu ay cakaran tahay waxaan ku sii soconaynaa xasan oo weydiisanaya farsamayaqaanka inuu ii soo geliyo fiidiyoga guryaha magaalada Djibouti laga dhisay intaan hadalkaygii aan furin xasanna aan wax ka weydiin inaan la ii soo geliyo fiidiyogii guryaha la dhisayo iyo ummadda gaajoonaysa inay ii soo geliyo ayaan jeclahay farsamayaqaanka كل حسنوا انت فيديو سوق لليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته guryaha dalkeysaan halka laga dhisay Sitegaasi waa magaalada caasimadda Djibouti laga dhisayaa waxa lagu qoray ama dadka laga dhaadhiciyay inuu leeyahay Salaama Bank ama odayga Axmed Nuur Jumcaale la yiraahdo laakiinse waxa guryaha iskale Khadraxayd iyada ilaashada guryahan iyada waa lacagtii wadanka waxa lagu maalgeliyay guryahaasi waxana guryahaasi ay yihiin xoolaha ummadda Djibouti waxana lagu qoray magaca inuu bangigan ama Jumcaale leeyahay laakiin Jumcaale male odayga Axmed Nuur Jumcaale male waxa le wadanka Djibouti baale oo waxa weeyaan waa lacagtii wadanka Djibouti laga dhacay waxa guryaha la geliyay guryahaasi waa inii muuqdaan oo wada arkaysiin xasan sheer guryahaasi waxa weeye waa 4 dabaq oo maqlaysa xasan maqlaya xasan oo si fiican ma ku maqlaya وغريهاسي أركيسيد وحنا قد سي مقال مدحدة جبوتي حافظة ما دركتي أما ماشى اللي يلاحظه ما دركتي ما لها ما دركتي وحوي حابته كتالة ما دركتي اللي يلاحظه وحلا يلاحظه ماشى سي وماشي كلوميسيكا لو قلت اللي يلاحظه ما دركتي ماشي لغو على مساري مدحوينها سوماليا محاكو هذا مركز ماشي وماشي حيبته كتالا كلونكا بوردبيش كلا يلاحظو ماشي سي هي كتالا وأفر دبخ حسنو أفر تبو وأفر هوتيل أيا لوغو تلقى هوتيل لو أي دتك سود دقيان
oo hotelkaasi uu leeyahay hotel maqsin loo galayo uu yahay hotel VIP oo aqal dana 4 maqsin iyo fadhigiisii hurdadiisii wax waliba markaas afarta daba waa 4 hotel ayaa la geliyay markaas odaga dhisanaya amba odaga lagu qoray magaca waa Axmed Jimcaale Saaceegis laakiinse habeen iyo daraar saacad u timaada islaanta madaxweynaha oo kulay video-gana isagana waan soo gelin doonaa iyadoo shaqaalihii la diriraysa ama shaqaalihii la hadlaysa isaga iyadana waan soo dhigi doonaa marka arrintaas xasanow dadka reer Djibouti waad ogtahay dhibaatada ay ku jiraan marxaladda ay taagan yihiin ummadda reer Djibouti marka sidee loo aragtaa xasanow dhaqaale fara badan oo dalka reer Djibouti dhinac waliba ka deeqaya ummaddu ay ku noolaan lahayd ayay ummaddu ku noolaan lahayd oo gaajo lagu dilay oo koraan haysan oo biyo haysan oo macluul dadku ay u dhimanayaan oo guryahaas awood furaraan guryaha inta leega la dhisay xasanow afarta daba iyo intii kale madalkana noo soo duubay iyagana noo soo socda bal sidee loo aragtaa arrintaas xasanay waxay ugu muuqataa iyo odagaas beerta markastaba loo buunbuuninaya la leeyahay Axmed Jimcaale odagaasna xitaa waxa ku jira xasanow oo loo dhisaya isagana oo gacanta lagu wadaa oo isagana aan soo dhigi doonaa viilaba ayaa ku jira aqal viila oo isaga loo dhisay isagana xeebta looga dhisayo Axmed Jimcaale ayaa isagana soo dhigi doonaa markaas iyadoo aragtaa xasanow aqladaasi iyo dadka reer Djibouti oo maanta gaajo u dhimanayo oo macluul ay taalo dadka Djibouti ummadda reer Djibouti ay cakiran tahay waxa weeyaan xasanow horta waan iska wada ognahay waan maansantahay waan iska wada ognahay tugnimada ballaaran ee ka socota Djibouti cid ay ka qarsoon tahay maanta ma jirto oo dadka reer Djibouti oo dhan way iska wada og yihiin waa la wada ogyahay waa la wada garanayaa waxa weeyaan lacagtan waxaan dhulka oo dhan lagu dhiso ama Axmed Nuur Jimcaale ama ahaado baalkii daabshiil waxaan arkayso oo dhan waa lacagtii Djibouti laga xaday waxa lagu kala wado waxa weeyaan wadanka waa la xalafay oo waxba looma reebin dadkiisii baa gaajoonaya wixii malaayiin soo galayeen arkaynina waan aragnay marka koox buu ilaahay noo keenay ilma geerisan la yiraahdo oo gaajo meel ay ku heshay la garanay inuu ilaageedii cunayaan loo yimid waa adiga arkay waxa wadankii way xalufeen laakiin waxa la isku daynaya ma iyaga waxa haystaan jahil weeyaan inaan la isku daynayn haystaan waxa la isku daynaya wixii lagu kala guurayna ummadu intaad wax uga boobtid halka mari adoo waxba ahayn markii horeba ma dhacayso haddaad buur tahay ama buurad ku tirsantahay waa la gartaa laakiin laba qof oo ilmo geersoon garanayno oo gaajo keentay marka waxa weeyaan inay xooli ummadda qaataan una halka maraan oo siday doonaan waxayaan waxaas wax dhacaysa maaha waa la iska dabayman guryaha wadanka laga dhiso oo dhan wadanka kale oo maaha wax uu hebel leeyahay heblaayay leedahay maaha wadanka kale wixii wadanka laga xaday wayna socotaa baashu dadka reer Djibouti oo doorashada yar ee baanbaanta Ismaaciil Umar qabsaday inuu nigu jabsan ku niyad jabina ma garan waxaan leenahay ku niyad jabina waxba kama jiraan muxuu ahaa waxa weeyaan mar dhow una dhaafaya anaga aan haynataa mar dhow una dhaafaya ninkan mar dhow una daynaya ka niyad jabina dadka reer Djibouti oo horay aan u soconno shaqadina halkan bay ka socotaa guryahana waxay kamid yihiin wax badan oo wadanka laga xaday oo maxay hayday odaga Jimcaale hayo oo ku qoran baa jira ma garanayaan uu salaadahan uu sheegayay waa kii daar cali su'aal ayaa sheegay oran jiray muxuu ahaa uu dhalaawno uu ka tagaa dumarka iyo ciyaalka intuu iska dhalee waxa weeyaan markaasi dadkan diinta haystaan ma garanayo wadaadada isku sheegaya cimaamada madaxa ku duubtay haddana wadan dhan xooloogi laga xaday ummadan laga xaday qof laga maxadin ummadan baa laga xaday faraha ku hayay cunaya ubad ku dhalaya ma garanayo markaas waxa weeyaan dadka reer Djibouti waxaan leenahay waxa waa laga daba tagi doonaa waxay doonayaan taagaan wadan kale waxan aad baad u mahadsantahay xasan waad mahadsantahay barnaamijku waa toos Djibouti ka baxaya Djibouti toos TV haddaan bulshaduna daawanaysa iyo intana daawad doonta anoo xasan daaliya xasan sheer waxaad uga barateen inuu miisoo daadiyo wax wanaagsan waxa ku sii soconayna xasan oo barnaamijkeennii kulliba waxaa xasan oo jira dalka Djibouti gaar khaasatan magaalada madaxda waliba dhinaca balbala markaad ku baxdid waxaa la soo sheegayaa ama dadku ay inta badan nala soo hadlaan ay noo soo sheegaan inay wadanka uu la jirin wax biyo ah darabeel meerasho iyo wax cuntada lagu karsado haramuusna ama maaragtay ero iyo maaragtay gaboodsayn iyo magaalada Plateauga baabadihii iyo waxa la dhistay keyd biyo ummadda reer Djibouti harraad bay dhimatay
marka sideed u aragtaa arrimaha caynkaas iyo dowladnimada ka jirta iyo ummadda reer Djibouti oo xaraad u dhimanaya waxa weeyaan xasan waa naga ka soo hadalnay muxuu ahaa arintan biyaha usbuucii hore ka soo hadalnay waan ognahay xaaladda ka taagan Djibouti dadkii waxa lala wareegaya habeenkii waa afartii habeenimo waa saddexdii habeenimo dadku bari shaqo tagayaan iyo reerkii la iska qaybinayaan la leeyahay qaarna soo jeedaan oo biyaha dhaamiyaan waa caasimadii dhannayd ee wadanka lagu leeyahay horumar baa la sameeyay lagu daaliyay television laga soo saarayo waxa jeerikaan biyaha lala fadhiyaay ee la dhaaminayo ee la isla kadeedan yahay ma aragtay marka waxa weeyaan muxuu ahaa waa loogu talagalay maaha waxaan biyo la'aan ma jirto dhibaata ma jirto waa loogu talagalay waan ku sheegay qurun buu gacanta wadankii u galay qurun wadan gacanta markuu u galayna maxaad ka sugayeen horumar iyo waxaad ka sugaysaa ku jira ma jiro marka wax horumar iyo wax ma jiraan marka lacagtii wadankan qaan baa la soo qaadaa baa imika waxaan ku hayaa hadhagaala waa ku maalintii dhawey tagay Ethiopia tagay meeshii qasabadaha biyaha Ethiopia laga keenay lahaa qasabadii laga keenay Ethiopia biyaha la sheegayay 28 ceel baan qodnay oo koronto la'aan bay ahaayeen iyay ku leeyihiin muxuu ahaa toddoba socdo inta kale koronto la'aan bay ku leeyihiin 340 milyan oo dollarna waa lagu bixiyay ceelkiina waan garanaynaa inta lagu qodo xasanow 200 kun baa lagu qodaa ceelkiina dollar 200 kun oo dollar baa ceelkii lagu qodaa 28 kun oo min 200 kun waa in wax weeyaan waa 20 milyan 30 milyan ba ka dhigibigiisa dhammeeyay ceelasha ku baxday 340 milyan waa la soo amaanay halkeen martay lacagtii intii kale kama dhig 50 milyan ba ku baxday ceelasha qodistooda xasanow qasaabkii la dhigay 100 milyan ba ka dhig war lacagta intii kale halkeen martay waxa weeyaan lacagta inta kale jeebada Ismaaciil marba ku maqan tahay waa wadan sida loo xadayo oo lacag project inta la sameeyo aan loogu talagelin lacagta si loo xado loo sameeyo mashruuca biyaha waxa ku baxday haday ugu badan tahay oo macal khasaare ku darno macal maxay dadkii jeebada wixii loo gelinay ku darno wax kasta ku darno 200 oo milyan haday ugu badan tahay ku baxay 140 milyan in jeebadiisa ku dhaceen lama garanayo ka badan inta ma ku dhacday marka toddobaaba koronto le baa lagu leeyahay ma motor baa loo waayay la siiyo maxay 20 kun oo dollar la siiyo loo waayo dhaqaajo meelaha looma waayin lacagtiiba markii hore waxa loo sameeyay mashruucan in lacag lagu cuno ee dadkina biyo loo sameeyo looma sameeynin taa ka imo waxa la sameeyay haddana warshad kale oo biyaha macaanaysa la leeyahay oo laga sameeyay doorale wakiilaha wasiirkii muxuu ahaa abtigeen haayay beeraha wakiilaha Ismaaciil marbadu macaaneeyay wakiilna lahaa markii badu macaaneeyay wakiilaha maalintii maxay tahay doorashadii baameenta qabsanay Ismaaciil waxa weeyaan warshada biyaha waxay macaanaysaa biyo badda ka dhigaysaa biyo la cabbi karayo oo milixda ay ka saaraysaa waxa loogu talagalay warshada xasanow lacag iyadna malaayiin lagu soo dollar lagu soo loo soo qaatay amaahda waxa loogu talagalay 200 oo kun oo qof inay waraabin karto waxay ka dhigan tahay caasimadda Djibouti marka saddex loo qaybiyo meel ahaan biyaha warshadaasi way ku filnaan lahayd waad arkaysaa marka maxay ka dhigan tahay waxay ka dhigan tahay biyo way jiraan ee dadka waa loogu talagalay dadku inay dhintaan oo dhibaatoodaan oo maxay ahayd haligmaan waa loogu talagalay xasanow markaasi waxa weeyaan meesha biyo laan ma jirto lacag leena ma jirto lacagtan waa la cunay warshadana lacag xoog la ku baxday oo aad u badan baa ku baxday waana giba suuq lacagta waaban hayba meel baan ku hay lacagta inta ku baxday lacag xoog la ku baxday warshadan oo yadna ka yareyn taa kale waana doosiga waxaan hayba dhan iyaan hayba warshadan lacag xoog la ku baxdo ka yareyn bataa kale ee sheeg bahashi ku baxday hadhaga laga sameeyo ka yareyn ba ku baxday haddana biyo lama hayo magaaladii 40 sano iyo wadanku calan haysta horumar baan gaadhnay idaacadaha laga leeyahay waxa la soo casuumayaa rageesa la soo casuumayaa abwaaniin baa la soo casuumayaa wadan abwaaniin inuu soo casuumo maxay heeday dhaqaalihiisu fasaxay waa wadan isku maxay heeday dacdaacayo oo isku toosay ma aragtay marka isku dheelitiran weeyaan marka waxa weeyaan meeshani dawladnimo ma jirto budcad wuxuu wadanku gacanta u galay waaniga ku celceliyo qurub buu galay budcada oo ka fikiraya maxaan xadnaa inta aqoontoodu weeyaan aqoon biyo wadan loogu sameeyo koronto loogu sameeyo internet loogu sameeyo male intan yarba waxa laga dhaxlay gaalka oo laga badbaaday marsada darkiisa gaalka laga dhaxlay airportka Djibouti gaalka laga dhaxlay Xasan Guleed Ismaaciil Maruux indha airportan dhisaynaayo muxuu ahaa waxay sameeyeen ubux bay yiraahdeen yaan ka sameeyna airport 1 milyan oo qof ka soo dhacaan oo Axmed Diini la yiraahdo Allah u naxariisto Axmed Diini yiraahdeen magaaladii Harad baa loo baqtiya 30 kun oo qof baa degan magaalada ubux dadka dhageysanaya Soomaalida kala moogo magaalada ubux lagu soo 30 kun oo qof baa degan Harad bay dadku iyo doomeenba waxa ma jiraan ba meesha shaqo ma jirto waa la isku dul dhintay meeshaas intii rasaastu reebtayna ka hadhayna Harad baa laayay ma garan reerka anfartaalka degan tii baa la yiraahdo airport 1 milyan ka soo degaan sameynayna war 1 milyan halkee u socdaanay tagi doonaan ka soo degayay
marka waxa weeyaan inay ruwaayad tahay baad arkaysaa buu xiru ciyaal suuqiin ay yihiin baad arkaysaa lacag baa lagu cunay mashruuca oo shiinaha lagaga qaaday oo lagu xaday ma jiro mashruucana waa been waan isku ognahay wadanka dhanba sidaa waa mashaariic fooyin baa la sameeyaa musiye Djibouti waxa jiraba nin caan ku ah alaabta intan dambe Ismaaciil Umar madaxweynaha noqday Ilyas Muuse Dawaale ninka la musiye waxa la yiraahdaa musiye dad musiye qaanta wasiirkii qaanta la yiraahdaa isaga qaanta ku xariifa sida loo nidaamiyo marka isaga u qaabilsan Ismaaciil Umar qaamaha si loo nidaamiyo waxa Ismaaciil Umar haystana waa inta wax kale maaha marka tani budgetka waxaan kala hadli doonaa tii xasan oo fond subeeraaga xabad baan loo waxaan ku darayaa ragga mas'uuliyiinta ka way naga daba iman doonta Abdul Qadir maxay yahay ninka waxa sheegana Abdul Qadir la yiraahdo bijeega ninka Ilyas Muuse Dawaale way naga daba iman doonta waxa moodin in lagu dhaafayo wax naga daba iman doona wad ciyaaraysiin waa wax waliba hay'ada international gacanta ay ku lug leeyihiin ma budgetkii Djibouti si doonayeen ka yeelaysiin ma fond subeeraaga waxa soo dhaxgalaya oo isha ku haya hay'ada caalamiga ku haya marka durtabo waxaan arkay imika dad noo soo qoray oo lahaa diyaar baan nahay waa diyaar bahashaas ninkii galaya waanu haynaa salku ka dhaqaaqayay waanu haynaa qoraal baanu haynaa salku ka dhaqaaqayay taasi ninkii galaya arinta dagaalka galaya waxa loo baahan yahay inaad maxay hayday inaad arintaas ku dhaqaaqdiin oo nin kasta baalkiisa ka wado ayaa loo baahan yahay waxa kale oo xasan oo tani biyaha iyo korontadii iyo internetkina waa lagu daray internetna ma jiro wax oo dhanba wada xirmayaan raashinkii baa qirqir ku jira warmarna wadanka dhanba inaa la xidhay ku dhowdaa baabka loo xidhay ka dareera la yiraahdo meesha waa la soo xidhay si tukaan faa'iidka ay oo khasaaray oo kale la yiraahdo waaba la xidhay meesha ka dareera la yiraahdo ku dhowdaa wadanka dhanba ma aragtay markaasi waxaan leenahay niyajibina laakiin dadka reer Djibouti anagu waan wadnaa intii dagaalkii dadka reer Djibouti dibadda joogay waxaan sheegaynaa runta dhabta ka tahay halgankuna waxa weeyaan waa la dhaqaajin karaa ninkan waa la dhaqaajin karaa isagii kooxdiisa meelba badan ku dari karnaa waxa waqti un bay ahayd iyo rag mucaarad sheeganayo uu ku shaqaysanayay un baa ninkan bartacaal siiyay oo maxay u fasaxay inuu intaas soo gaaro gaalada waliba gaaladuba waa horay ninka faraha ka qaadeen oo iska rabeen inuu meesha ka tago laakiin mucaarad rag sheeganaya oo mucaarad ahayn oo isaga hoosta uga shaqaynaya iyaa ninkan taageerasi iyaa ninkan caawiyay intaas soo gaarsiiyay oo ummadda khalday oo wax beena u sheegayay marka waxaan leenahay maanta wixii ay dhab ka tahay wadaniya ciyaalkii wadanka waxaan leenahay u dhaqmaqanaya wadankani waxa weeyaan warka dhaqaaqaan leenahay arintan waxa kamid ah halkan nigu darayaayo ni tusayaa imka DJ Zubair nin la yiraahdo jira wuxuu yahay Ingiriis ku yaro meelaha iska boodbooda oo Sweden iyo meelaha joogo reer Soomaaliland jira Djibouti baa $2 milyan laga siiyaa baan maleynaya $2 milyan Djibouti waxay tahay ma garanaya laga siiyaa oo la yiraahdo magaceegu kor u kicinaya war magacu kor u kicinaya ka jirta Djibouti dad qaada halkay jirta waxay qaadaa dana Ismaaciil Umar bay gurtaa waxay qaadaa halkay jirta Djibouti iyo la hor kicinayo waa nidaamyo kale oo lacag oo lagu nidaamsanayo lagu xadayo ma aragtay marka waxa weeyaan taasi xasan oo biyuhu haddaad wax ku daraysid ma halkaa baan ku dhameeyay aad baad u baxsantahay kulliga barnaamijku bulshada reer Djibouti kulliga waxa jecelahay inaan u faa'iideyno haddaan nahay Djibouti Toast TV oo xasan jaaliye ah oo mar waliba aan garab joogsanayo ummadayda iyo dalkayga aan jecelahay inay ka baxaan dhibaatada iyo silaca ay ku jiraan marna ma ogolaanayo mar waliba waan u eeganahay inaan dadkayga iyo dalkayga u hadlo waa ku sii soconayna xasan barnaamijkii waliba waxa galaynaa waxaa jira nin safiir ka ahaan jiray dalka Muqdisho ama Soomaali weyn oo la oran jiray balalo ninkaasi iyo arrimihiisa iyo xaaladiisa halkay ku sugan tahay iyo maanta bal waxaad ka ogtahay bulshada la wadaagaysa inta barnaamijka intiisa kale aan gelin ninkaasi horta ninka la oranayay balalo la oranayay safiirka ka ahaanayay ii sheeg muxuu ahaa Muqdisho ka ahaanayay Djibouti u joogayay ninkaasi waxa weeyaan waxyaabo badan baa loo isticmaalay lagu shaqaystay oo arrimo badan baa faraha loo geliyo lagu shaqaystay waxa weeyaan marka ninkaas aad baa loogu shaqaystay waxyaabo badan baa faraha loo geliyay waa lagu shaqaystay markii lagu shaqaystay balaayooyin badan oo sida argagixisada al-shabaab iyo wax la halmaala gacanta loo geliyay marka waxa dhacay imikana waxa la wadaa in qoorta laga jiro Ismaaciil Umar waa taqaanaa nidaamka maafiyada waa taqaanaa argagixisada soo shaqayso waxa weeyaan wuxuu joogaa maanta ninka balalo wuxuu joogaa Artuska joogaa Djibouti joogaa meel magacaab u leeyahay waana loo diiday aan waa war sugan baan hayaa
waana la diiday ninkaasi inaa meel loo magacaabo waxa loogu xajinayaa Djibouti waxa weeyaan waxa meesha loogu xajinayaa waa inaa qoorta laga gooyaa la doonayaa dadka la ilowsiinayaa edegii lagu qalid edegii baa lagu soo xidhay waxa loo dhaweynayaa mididiina waa loo lisanayaa waxa loo dhaweynayaa maxay godkii lagu qali lahaa baa loo dhaweynayaa marka isaguna waa jaahil oo dul fadhiya marka waa sidii Cabdilaahi Cabdi isagu waa isku mid isagii Cabdilaahi Cabdi waa isku mid waxay ogyihiin waxyaabo badan ay dadka kale ayna ogeyn bay ogyihiin waxay ogyihiin Ismaaciil Cumar iyo cilaaqaadka iyo argagixisada intay isku jiraan boogay iyo ogyihiin Ismaaciil Cumar iyo cilaaqaadka ay leeyihiin argagixisada ee al-shabaabku iyo ogyihiin Cabdilaahi Cabdi ninka maxay heeday ka muxuu ahaa booliska haysta ee reerkaasiisaha iyo maxay heeday iyo ninkan balalo wasiirka ahaanayay joogayay iyo safiirka ahaanayay joogi jiray Muqdisho marka labada ninba mididii baa loo leesanayaa hore waa nagii ugu sheegnay Cabdilaahi Cabdi maanta waxa uu dhamaaday maamulkani dhabarkana waad ka jibin kartiin waanad haysiin wax ad maxay heeday banaanka dhabarka kaga jibisiin oo ninkan kaga argoosatiin waad haysiin waana lagu maqan yahay Cabdilaahi Cabdiliiska safka hore ku jiray maanta waxa safka labaad galay waa balalo ninka la yiraahdo meel magacaab uu yiri waa la diiday halka fadhi baa la yiri wareersan yahay markuu cartu jooga wareersan yahay waxa weeyaan hormeesas kaga carar baan leenahay wax waad soo noqotay waxaad ka noqon karaysaa waad ka noqotay nidaamkana ma si dheero uu dhow yahay hadii toole ka carara oo meesha ku sugina waxaan leenahay u baxa dawlad wadanada iska baxa gaalada isku dhiiba u sheega war waxaan baan haynaayna badbaadiye dhawaan idin badbaadin waxa aysiina waan laga shubi cidna taabsan karaysa ma jirto ogaada sababtoo mar hadad wixii khashiftay cid ku iman karaysa ma jirto marka ninkan raqda ah ee meesha fadhiya baqtiga war halkan ku sugina doqonkan inuu meesha nagu qalay ka cararaan leenahay marka balalo waa lagu maqan sida Cabdilaahi Cabdiliiska qofka labaad weyn maanta ku jira aan hayaano waa war sugana leeska dadka wanka ciida laga dhigayo ee la diyaarsaday Cabdilaahi Cabdi waxa ku xiga waa balalo wanka ciida noqon doona sababtoo ah waxa la sugayaa in waxba isku yardu baridayaan ilma gaarisa waxa isku baridayaan waxa weeyaan ninkii Maxamed Jaamac la oranayay iyo doonaya Ismaaciil Cumar inuu ka dhigo jarnaal inuu ka dhigto doonaya marka waxba aqalka loogu dhigdhigayo waxba loo barbaraayo dad baa loo sameeyay wax barbaraniko waa iska jaahila waxba loo dhigaa marka ninka baa la diyaarsanaya meesha inuu dhigto jarnaalka markuu dhigtana Cabdilaahi Cabdi wadarki doonta gantaal waxa la dhigan doonaa duwaabad baa la dhigan doonaa meeshan muxuu ahaa Venice halka ka soo garaacda la dhigan doonaa Cabdilaahi Cabdi meelaha ordaya muddo la jiiday waan arki doonaa mar dhow markaas baladona taaba sugaysa Xasan oo baladona waa lagu maqan yahay ويا حسن أد بدو مع سنتها كل برنامج كواتوس برنامج كأبدا داونا سيء أنت داونا وتحدانا جيبوتي توس تي في كل واحد نقبر توح ولا حسن حدانا يا حسن يعني واحد كل على يا حسن برنامج كيدي كل برنامج كواتوس ومدنا هلا لو ذاك توح ولا حسن واحد دول يا حسن هنا كويديو دلك وديه سائر جيبوتي مقال مدحضة واللي بالحافظة بالبلد ما شاء الله يلاحظوا واحتدابه ويتجيهين قوميات عفرتها هي قوميات Soomaalidu ay isdhex degan yihiin dadku waxay haystaan xaafada waxtadaaba inay cafaruun degan tahay laakiin si aan waan ogahay oo korontada ka shaqeyn jiray ninkii xarkaha dhigay koronada dhigay baan anigu lakaas waxa degan xaafadaasi cafar iyo Soomaalidu way degan tahay marka waxaan leeyahay dhibaatada ka dhacday dalka Djibouti la doonayo qowmiyadda cafarta iyo qowmiyadda Soomaalida khaasatan waliba qowmiyadda Ciisaha ina madaxa la isku geliyo oo dhibaatooyin aad fara badan ay ka dhacaan waayo isaga ku naaxayo oo dalka gudihiisa hadii cafar iyo Ciise isku laayaan wuxuu leeyahay waa dadkii aan kolkii hore kala ilaalin jiray waayadii Faransiiska dadka waxa lagu wali jiray labada qowmiyadood cafar iyo Ciise la kala ilaaliya dawladnimo ma qaadi karno ayay ahaan jirtay waqtigii 7 wixii ka hor maantana ciyaarta halkii baa lagu celinayaa waxa la rabaa xasano ina qowmiyadda cafarta iyo qowmiyadda Ciisaha ee wada nool ee dadka ku wada nool dalka wada leh dad is wada dhalay dad is qaba kala guursaday oo maanta xudurtooda ay isku xidhan tahay ayaa la rabaa in la isku fidneeyo oo dagaal ka dhaco sida dagaalka ka dhacaya maaragtay magaalada Ethiopia khaasatan gobolada maaragtay Soomaalida iyo Cafarta ay degan tahay maanta wada ogtahay Xasanow Djibouti baa lagu leeyahay waxa jira ina dadkii qowmiyadda Cafarta iyo qowmiyadda Soomaalida oo waliba Ciisaha ina la isku dhifto arintaasi
shirqoolkaasi wuxuu samaynayaa sawirkaasi waa la iska wada garanayaa ummadu jaahil ma ahay dadka reer Jabuuti hadduu jaahil oo haysto isagaa jaahil laakiin arrintaasi dadka maxaa fariin u diraysaa labada qowmiyadood ee wada nool ee wada dalkooda waxa weeyaan xasano waa runtaada oo waan iska ognahay ninkan wuxuu meesha ku fadhiyaa inuu horta dad uu iska horgeeyo inta uu meesha ku badbaadayo si uu meesha u fadhiyo uu badbaado ummadda inuu iska horgeeyo waan ognahay inuu dabkas Muqdisho ka socdo uu lug ku lahaa oo isagu madaxa isku gelinayo ummadda waan ognahay Somaliland uu ku dhex jiro haddana dhinac ka caawina dhinacna uu madaxa isku gelinayo waan ognahay oo isagu qaar meesha inay fadhiyaan ku xajiyo uu ka shaqeeyo waan ognahay oo waa kii dhowr jeer ka hadlay arrimo badan oo muhiim oo sira ka hadlay Abdalla Dabarkale ninkii saaxiibkeena Abdalla Dabarkale marka waxa weeyaan waxaan waa shaqadiisa oo madaynayo doofarmada ay dabeecadiina madaayay waxa weeyaan dadkii galbeedka inuu ku jiro waa la isku ogaa oo masiibada ka shaqeynaya dadkaasi iyo dhibta halka ka socota inuu ka shaqeynayo waa la isku ogaa inuu hubka dadka lagu laynayo uu soo ka dambeeyay waa la ogaa imika tiibu Jabuuti keenay dhalinyaro la sameeyay labada qowmiyadood baa yaa la sameeyay ciise afar la sameeyay maxaa hayday oo la isku horgeeyo oo isku diray waraabali isku diray baa la sameeyay is shiiday waan ognahay arrimahan oo kale waxa laga sameeyay jiray kaarteetwa iyo kaarteesanka xaafadda la yiraahdo xaafadda shanaad iyo xaafadda saddexaad ee Jabuuti baa laga sameeyay si madaxa la isku geliyo oo la yiraahdo gadabuurshiye saaq baa islaynaya marka loo baahan yahay dad inaan la beegsado gaara taas waan ognahay maanta tii oo kale laga sameeyay waraabali meesha la yiraahdo oo balbala ku taala koomuna balbala ku taala waxa la isku horgeeyay dhalinyaro la samaystay oo ciise iyo afar iyagu soo direen dhalintaas xaafadaha laga soo diray warag wasiir ay joogaan oo waa kii dadku ay sheegeen sawirradooda soo saareen marka waa wax uu isagu isku ogyahay Ismaaciil Umar dhalintaasi ma dad isku dhaco is diray marka waxa weeyaan dhalinta waxa isku horgeeyay dadku kacaan isku dirraan waxaan leenahay war dadka reer Jabuuti ragani hadeed way ka dhamaatay say yiraahdaan meesha annaga yaa badbaadinay annaga ku joognay nabadda annaga haynay si loo yiraahdo waa ka markaan faraha ka qaadnay meeshii waa la isku rugmaday loo yiraahdo la doonayaa war ciise afarta waxa leenahay dhageysanina waalida raggan dhageysanina qurunka raggan wax ciise anfar u dhaxayo Jabuuti la isku dilayo oo uu dhax yaalay ma jiro waxa weeyaan dadka qurunka haystana waa ragga meesha maamulaya darkaysiin oo ninkaas Ismaaciil Umar u horeeyo oo Bahfur labo horeysa weeyaan cadawgu waa kuwa wax ciise anfar cadow dhax yaalay Jabuuti oo ay isku dilayaan ma jiro waanaga ogno balbala tuumbo u gasho gooniya tuumbo biyo gooniya xafad anfareed oo ciise gashay ma jirtay qasabada biyo waa mid quraato haraadna wada baqtaabeenkina jarikaan baa la wareega waxaad isku dirraysiina meesha mayba yaalaba inaad cuno qabateen ku wada jirtiin baad arkaysiin ina ummadda la isku horgeynin maxaa hayday raggan ay ku shaqaysanayaan meelaha waraawaraada ku hayana ama qlina ee kuwa mucaarad sheeganaya kuwa muxaafad sheeganayaba ee dadka doonayna inay madaxa isku galiyaan ama qlina aan leenahay taasi ay ogolaanina leenahay dadka reer Jabuuti waxaan isaga ka dambeeyay Haramuus baa laga soo abaabulay in madaxa la isku galiyo ciise anfar madaxa la isku galiyo Haramuus baa laga soo abaabulay yaa laga soo diyaariyay si la yiraahdo meesha ilenga baashi hadeed way ka dhamaatay raggan oo iska ujeednay si socdaan si loo yiraahdo war baasha ba anaga gacanta ku haynay markaysiin loo yiraahdo baashu way burburaysaa waa la isdiray ciise anfar baa isdiraysa waa hadalada la wareegaan ilaa waqtigii calanka la qaatay ilaa maanta ay la wareegaan laakiin waa inaan tusnaa inaan dhaafsanahay intaas oo garaad doonay waa inaan tusnaa oo sheekadan yare maxay hayday shadaarad geerisa ayna meel gaarsiisneen waa inaan tusnaa maxay hayday waa inay fahmaan marka waxaan leenahay dadka reer Jabuuti warna maqla noo soo xidha ama ciisahaada ama anfaraada ama reer kala ahaada reerka doontiin ahaado annaga runtan niyaynay waxaad isdirshiin oo isku dirshiin maba yaalo xumaantuna Haramuus bay taala waxa haddaan isdhaafinana ummaddu way noolaan karaan dhaqaale wadankan uu leeyahay ummadda ku filan cadowna ma lihin talabaadan xasan oo dadka ugu daraynaa waxa weeyaan khatar kala jirto oo soo biirtay oo ku dari doonaa waxaan u maleynayaa waqtiga dib waan ku soo dhawaanay khatarta kale soo biirtay waxa weeyaan maalmahan waxa yimid Jabuuti daroono ay wataan masaarida ciidan waxa yimid masaariya oo la leeyahay waxay la wadaan ciidanka Jabuuti bay tababar siinayaan la leeyahay ciidankaasi daroono ay wataan daroonadaasi waxa la doonayaa in lagu weeraro maxay hayday habeenkii Ethiopia lagu weeraro la doonayaa marka waxaan ayaamahan ay Eritrea u soo duruqday warbay haysay waxa xuduudda Jabuuti Eritrea ugu soo duruqday warbay haysay waxa la caawinayaa waa Tigray Ismaaciil wuxuu arkay in Tigrayga soo noqdeen marka waxa weeyaan waa dhalee kulba dhinac ugu jeesanay waad iska garanaysaa Ismaaciil Umar inay soo noqdeen Tigrayga uu dareemay marka imka Tigrayga uu leeyahay waan caawinay masaaridii uu hubka Jabuuti u soo mariya si Tigrayga loogu geeyo halka loo mariyo ana meel u marin ee Keenada ku hayaa
oo diyaaradaha hubka u daadin doona Tigray iyo jabhadaha Ethiopia halkan Djibouti ka kacaan buu leeyahay marka Eritrea waxbay dareentay waxana gelinkan buu ugu soo durqday xuduudda waxaabay dareensanayd marka arinta kala jirta khatarta kala jirta dadka reer Djibouti hadda aragtiin diyaaradaha iyo droonada iyo ciidanka masaarida socda sawira oo soo dira inagu aad bibliyeenin hadda ka cabsoonaysiin anaga noo soo dira anaga tabinayna oo u tabinayna dawladaha adduunka ole ninkan wadanka khatar buu galiyay geeska Afrika khatar buu galiyay wuxuu isku dirayaana macal Suudaan baa timid rag Suudaan ah simid ciidanka Suudaan kamid ah yimid oo la leeyahay la taliyayaal ciidanka Djibouti weeyaan war ciidanka Djibouti waa kii Mareykan iyo Faransiis iyo Shiini iyo balaayo dhanba joogeen la talinayeen ciidanka maxay intanoo la taliyayaasha jooga ka badan ba ciidanka Djibouti hadda eegtidba Suudaan baa la keenay Masar baa la keenay waxa joogay markii hore Faransiis baa joogay Mareykan baa joogay waxa joogay maxay hayday Shiina joogay waxa dhan baa la taliyayaal ahaa oo bari jiray ciidanka Djibouti kuwii waa kuma filnaa leeyahay ciidan ma jiro wala baabiye ciidanka Djibouti hadda ma jiro kuma filnaa leeyahay imka Suudaan iyo Masar baan keenay war ciidan la taliyayaal yihiin ma jiro Ismaaciil waan isku ognahay sheekada ciyaalkan yar shidaarad gaarsan laga joojiyo waan isku ognahay sheekadane halka uu socotide dadka reer Djibouti waxaan leenahay war hadda sawirada soo dira ka duuba markaad aragtiin alaabtaas iyo ciidanka aad aragtiin soo duuba soo dira annaguna waxaan gaarsiinaynaa muxuu ahaa hay'ada caalamkan gaarsiinaynaa inuu ninkan nasiibada geeska Afrika ka shaqeynaya waa kan uu wadaa baan leenahay waxaan ma joojinayo doofarmada ay dabeecadii ma daayo dadka reer Djibouti soo daayaan leenahay adduunku waan gaarsiin doonaa waan ka wargelinaa sababta wadankeena bay khatar gelinaysaa wadan waxba naga gelin anagu biyo xidhanka wadankeena kuma yaalo webiga Niilku ma maro maxay ahayd dhulkeena ma maro halkeen ka soo galnay dacwadda Masar iyo u dhaxaysa Ethiopia anagu wadanka anaga noo dhaweeyna xigaayay waa Ethiopia injaar lanahay wadanka aan dhaqaale badan keenna waa Ethiopia wadanka ay dadkeena ku nool yihiin waa Ethiopia marka waxa ka lagu kalifayana in Ethiopia weerar ku qaadno ma arkayo laakiin waxa khalad kale xasan wadaan meeshan eego waa ninka Isayaas Afwerki iyo Abiy khalad ka weyn waxa khalad weyn u leeyihiin iyaga waqti si Ismaaciil Umar horaan ugu sheegnoo niri waa ninkan waa doqon Tigray dhabarku ka jabiyo waad aragteen shalay uu isku macaaninayo hoos joogo maanta inagu dhabarka naga jabin markay baasho naga leexatay waa ninkan man la qabatiin umada Djibouti taageertiin oo istaafina ninkan maray way wareegayeen oo ma kan iyo kii kale ku hayeen maantana waa ka darkiisii iyagii ku jeestay uu ka shaqeynaya Abiy iyo ku maqayn ka shaqeynaya waan sugeynaa Abiy sidoo yeelo arintan waxa la dadka Djibouti waxa daragtiin soo daayay ala gabanina ويا حسن أبي وكل برنامج وقبقبو وكل برنامج وسوق قبقبين هذا هاي جيبوتي توست تي في يا حسن دالية وحلا هاي كل بحسنه وحن جعلها هاي صور بقى كوم مقرأ كل بقى الجوسو بليو أنت صور كل الجوسو بليو سؤال شيء قدام بيسافر ودينا يا سؤال شاسنا وسؤال مهمة ودأوي سؤال شاسنا وحويا دلك إثيوبيا ولبنا خاصة دلك قومية عفرتها يقومية عيسها isku leenaya dalka maad aragtay Ethiopia dhexdiisa waliba isku haysta meel cidla ah oo gurina ka dhisnay oo maad aragtay ay ku xoolo dhaqdaan oo xoolo dhaqata yihiin dad aad u masaakiin oo maaragtay caanahooga yar iyo xoolaha yar iibsada iyo maad aragtay dagaal dhex dhigay oo ciidan dhan ay soo weeraraan oo maaragtay booliiska maad aragtay ama maaragtay ciidanka Ethiopia oo halkaasi dhimasho badan ay ka dhacdo mar waliba oo dhowr sano muddo 3 sano iyo ziyaado ay socoto arintaasi ila Umar Geelle ninkaasi bilaa naxariista ay dalka Djibouti madax ka ah ee kulliba isku dhawaaqay ee maxaa ku raada dabeesha la baratamay ee qofna aan doorasho la gelin wadanka Djibouti mar waliba saa umada u qafash arrimahaasi dibadda ka dhacaya ee dagaalkaasi u dhaxeeya labada qowmiyadood wax dhexdhexaadiya maanta waxa la leeyahay in Umar Geelle waa mas'uulka dalka Djibouti ama mas'uulka madaragta umada reer Djibouti sidoo u dhexdhexaadin laayahay arinta caynkaasa ee ka dhacaysa magaalada galbeed ee dadka cafarada iyaguna mas'uuliyiinta ee dalka Djibouti jooga maadaama ay iyaguna ay qowmiyadooda inay dhex galaan arintaasi oo la dhexdhexaadiyo sida arrimaha kale loo dhexdhexaadinayo hadii maanta Soomaaliya arinteeda la galo wala dhexdhexaadiyaa hadii Ethiopia noqoto hadii dalal kale noqoto oo maanta Masar u dambayso magaalada Masar iyo dhexdhexaadinaya uu doonaya inuu fidnad ka abuuro Ethiopia iyo Masar arintaasi markaasi maxaa loo dhameyn waayo arintaasi mar waliba cagaha u jiidanaysa dhibaatadaana wali u socota xasan oo bal dadku ay kula wadaagaan bulshadana arintaasi mar waliba madaxa uu duuray waxa weeyaan xasan waa runta oo arintaasi waa arin gelin soo socotay oo sanado soo socotay dagaalka ciisi canfarta ka dhaxeeyay Ethiopia laakiin dagaal ciisi canfar wali way isdirireen 100 sano ka hor bay isdirireen ciisi canfar oo wax imika amaaha Ethiopia ciisi canfarta degdegtay way isdirireen waligeed waxa weeyaan taasi waxay ahayd xilliga ay
barwaaqadu timaadee xooluhu ay dhalaan caanaha laga dhargo iyo maxay ahayd la isku dharg baxsanayay oo dagaal waxay ahayd kibri ahayd laakiin kani maanta ka socdaayay maaha dagaal ay iyagu is haystaan waa dagaal siyaasadeed inuu siyaasadeysan waxa ku tusaya waa anigii hore uga soo hadlay dhowr jeer war waxay laba qowmiyadood oo qaar Suuri la yiraahdo kuwa Hamer la yiraahdo daga maxay ahayd Ethiopia iyo isdiray oo isduqeeyo daga waxay degaan maxay ahayd koonfur galbeed bay degaan Ethiopia qowmiyadaasi waa kuwa cawaanta dadku ay yaqaanaan labada qowmiyadood way isdirreen way ismariyeen dhul bay hayna waxay isku haysteen markiiba waa la kala dhaxgalay waana dhameeyay arintiina meel baa la saaray wayna dhamaatay tani haday dhul la isku haysto maxaa loo dhameyn way loo dhaxgali way dawladda ka tirsan dawladda Ethiopia maxay u dhaxgali weyday waxay ku tusaysaa arintan dhul maaha waxa la isku haysto maaha arin dhuleed maaha arin qabiileed maaha waa arin siyaasadeed oo ay dawlad Ismaaciil Umar oo gunta ugu jiro oo isagu xiray wadabuni xiray waa hore dawladda Ethiopia maxay ka galay leedahay sababtoo maxay ka galay u leedahay markay way isku day dawladda Ethiopia laakiin maxay ka galay sababtoo dadka meeshan ku dhimanaya Afar iyo Ciise waa dawladda Djibouti ay ka tirsan maxay ka galay leedahay oo shaqadeeda maaha iyada marka ragga dadkan laynaya dadka mariyay wax weeyaan waa bahfuur laba waxa laysa in laga wareegay runta walaalayo halka rasaasta la mariyay waa Djibouti halka dadka laga laayay waa Djibouti halka dagaalka laga unkay waa Djibouti xasan waxba ina loo doondoonin meel kale abiye waxba igama khuseeyaan buur wuxuu arkay inay Djibouti ku dhex jirto ay masiibada wado abiye waxba igama khuseeyaan buur hadeed waxaan maxay wadada yar waxay marayaan ninkii hor joogsada rasaas baan kaga shaqeyn buur marka wadadiisa ay biyuhu marayaan raashinku ninkii hor joogsada rasaas buu kaga shaqeynayaa iyuu yiri abiye hadaad ismadinaysiin ciisi anfaro ismadiya buu yiri albitarkina Ismaaciil Umar uu kolka siiriga neef fuufaya markaad isleynaysiin maxay ahayd markii isna kala joojinayo markuu doonayo madax isku gelinay inagina jirtaa buu leeyahay marka waxa weeyaan arintani waa siyaasad oo way dhaafsan tahay dadka waxa loo tilmaamaa TPLF xagee jirtaa iyada baa buuro gasho la mariyo la eriye TPLF ma jirto arintu waa Djibouti waxa ka socoto waa maamulka Ismaaciil Umar maxay ahayd qowleysatada waxa wada arintan annagu waaniga kale hore uga hadlay runta way soo bixi lahayd xasan oo say ku soo bixi lahayd runtu dadka loo horkeen la hadal ma wax run ah soo bixi lahayd runtu say ku soo bixi lahayd waxa weeyaan war saddex nin oo waxaan idhi Ciise ka soo jeeda gobolka City aan helno oo dibadda joogo aqoon-yahana oo wax yaqaanaan helna baan idhi doosiyaal baan meel la geeyni la dhigi dacwad baa Ethiopia lagu dhigi runta soo bixi hadduu Ciise Afar ku soo duushay Ciise leenaysana war maxay ahayd waxa la oran Afar baa ku soo duushay la oran oo qaramada midoobay shaqadeeda maaha reer haystay waxan maaha haddii dhul la isku haysto dhul baa ay orani haddii meel kale ay ka socotana way soo bixi lahayd oo dawladda Ethiopia qoraal loo diriyo warcad ka soo saar loo dawladda Ethiopia marka qaramada midoobay warqad u dirtay tiraahdo warcad ka soo saar dadkan meesha isku dilaya dawladda Ethiopia maxay u dhaxgali weyday dawladda Ethiopia waxay oranaysaa war anaga wayna dhaafsantahay wadanka baa laga wadaa Ismaaciil Umar baa waxaan waday oranaysaa runta soo bixi lahayd magaran haday abiye wadan abiye ana wada oran lahaa masiibadan haday maxay ahayd inta midna ahayn oo tahay wuxuu dhulina la isku haystana maxay ahayd muxuu ahaa dhul la isku haystana dhul baa la isku haystaa waan kala karilaanahay runta soo bixi lahayd laakiinse ilaa imika waan laanahay xasan 2015 baan war saddex nin oo ka soo jeeda una la helo oo ka go'an tahay in arintani banaanka u soo saaraan oo wixii jiraba la ogaado alla hela baan idhi maxay ahayd oo ka soo jeeda kilka City la helaan shinile war waan weyne waa la iswada qarinayaa ma garanayo waxay isla wada qarinayaan ay u cabsoonayaan waxa weeyna dab waxaan leenahay taan horaan u sheegnay imikadana way banaanto hadii dacwadda qaramada midoobay loo tabiyo waxaan ku hayaa inay runtu soo boodi oo Ethiopia war cad ka bixina biye oo oran aniga waxaan ininkaay la hadla waran doona qaramada midoobeyna rapport bay ka soo saari doontaa iyadoo in hebel iyo qabiilkan ma taqaanay wixii jiray banaanka soo dhigi runtana waa la ogaani markaas marka waxaan leeyahay yaan ku soo aad baad u mahadsantahay xasan anagoo soo gabagabeynayna barnaamijkii oo ku soo gabagabeynaya kulliga waxaa jira xasanow magaalada Djibouti waliba khaasatan meesha loo yaqaano baladi beedbalka ee Djibouti waxa la soo sheegay xasanow qoraal la igu soo dhigay codadna la igu soo dhigay audio inuu ka shaqeeyo uu ka shaqeyn jiray Cabdi Miguel oo la jiray madax ka ahaan jiray markii hore imika uu madax ka yahay nin Afar oo la yiraahdo Abaysi ninkaasi dad aad u far badan oo shaqaala ayaa isoo qoray telefoonka ila soo hadlay wax badan ay soo qoray waa ninkaasi kulliba anagu ma madax banaanin hadalkeeguna meel aan ku hadal lama jiro oo biilka yar iyo maaragtay mishaarka yar baa laga joojinay ninkaasi wuxuu qaatay inuu dadka uu tacaddi badan ku sameeyo inuu dhibaatooyin badan u geysto uu yiraahdo maanta
mahdi kartiin qofkii hadla mishaarka ka jaraya qofkii kale aniga afkay u taagana waa eriyaya ninka Aba Yazid baa la yiraahdaa ninkaasi kulliba bulshada ka shaqaysana waa dad aad u fara badan qumiyad kasta laakiin qumiyad buu si gaar ah u erinayaa bay yiraahdeen marka way noo soo qori doonaan kulliba way la soo hadli doonaan فيديونا وينوسو لي دونان يرجي دبعته كسمية لكن سنكاسي بالمحا فرينو دريسا نكاس وشقالة كهون كلا بالد بيبلكا وضد بدن حكومة ورجل جيبوتي وحاسلية يعناها طبتي مركز نكاسي وحلي نومريا تي في جماعة جيبوتي توس تي في محا فرينو دريسا ومضى هي نكا waxaan u diraynaa Aba Yazid waan garanaynaa waxaan leenahay Aba Yazid waan isku ognahay marka qof loo dhiibay Djibouti meel loo magacaabayo waxa la soo Ismaaciil Umar wuxuu eegaa CV-giisu eegaayo ninkani nin qurun kula wada garaya miyuu yahay marka hadda taayna de anagu waxa ka bedeli karmayno kuwa qurunka Ismaaciil Umar haddaanad ahaynna waxba ku daalin way si socdaan ummadaada u naxmaan leeyahay ummadan baad la hadhido ummadan baad la nooshay ummadan baad ka soo jeedaa ummadan baad tahay baan leenahay Aba Yazid ummadaada u nax oo ka daa maxay heeday tacadiga ka daa raggan way dhamaatay sheekadoodu isaga keligii maayna xasan waxaan ku daray dad badan oo saa looga cabanaya jira waxa jirta gabadh kale oo la yiraahdo Roorda Barxad oo odayga curadka reer Xubla ahaa ee wax gub reer Xubla uu dhalay maxay heeday jaalaha ahaan la garanayay uu dhalay baa jira uu qabayay ninkii maxay heeday ii sheegeen xaakinka ahaanay man maxkamadda ka ahaanay xaakinka markii dambe presidentga madaxa ahaanay maxay heeday maxkamadda ka ahaanay Allah u naxariistay warsame la oranayay maxamed warsame la oranayay uu qabayay baa jirta gabadhaana aad baa looga ashkatoonaya reerkii ka soo jeeday Yunus Muuse aad uga ashkatoonaya oo Khadraxayd baa yaa soo wakiilatay oo qori dab ay la dhex socotaa reerkaasi oo maxay dhinac kasta dambe ka qabadsiisay gabadhaana waxaan leenahay walaashay waxaad cunaysid cun ummadana ammaan sii baan leenahay tolkeedna waxaan leenahay eegaan oo la socdaan gabadhaas dhibta ummadda ku hayso kala hadlaan kulliba way maqlayaan dad maanta gaarsiiyaan leenahay maalinaan maanta ahayn baad ka qoomaynaysaa baan leenahay dhibaatada dadkaaga ku wadi ee ka jooji baan leenahay marka dadkaasi waxaan leenahay war maamulkan uu socday maalin la xisaabinaya jirta aakhiro horteed waa la xisaabin doonaa ogaada ka hadaan leenahay ummadda aad baad u mahadsantahay kulliba soo gabagabeynayna sawir qaadaha codadka soo tabinaya lagu xidhaya ummadda inay nala wadaagaan barnaamijyada Djibouti Toast TV anigoo Xasan Daaliya iyo Xasan Sheekh waxaan idinkaga tagayaa fi amaanillah assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh